aad baan idinka mahadcelinayaa idinkana marti sharafta barnaamijkeena waan iska bilaaban doonaa waxaan ku furi doonaa bal banalka maanta halkaynala jooga oo topiga maanta aan ka hadlayna uu yahay ecosystem connect elementiska ama factorieska saameeya ganacsatada waxaan ugu horreysiin doonaa bal agaasimaha wasaaradda ganacsiga bal si uu inooga warramo introductionka hore wasaaraddu waxay qabato iyo roolka ay ganacsatada ku leedahay iyo sida tahay inuu inooga warramo og inaga siiyo kusoo dhawaad بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدشة دمانتو والسلام يا بنيرتا قبقابياشا runtii waa kulan aad u muhiima waa kulan muhiim u ah ganacsatada iyo cid kasta oo magaranaysa fikrad haysa in meelahan oo kale la iskugu yimaado shirarka noocan la qabto waa waxyaabaha dhiirigeliya runtii ganacsiga aad baan u soo dhaweynaynaa anaga wasaarad ahaan cabdishakuur anaga waqti ka faa'iidaysanayna si aan toos ugu galo hawsha uu weydiiyey wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waa wasaaradda uga mas'uulka ah qarankan hadday noqoto ganacsiga hadday noqoto dhaqaalaha hoggaanka dhaqaalaha dalka hadday noqoto siyaasadda hadday noqoto shuruucda dalka loo dejinayo iyo inay sahasho mar kastaba wax kasta oo fudaydinaya ganacsiga dalka oo caqabadaha ganacsatada haysatana ay ka qaado inteeda awoodda ay u leedahay wasaaradda muxuu ahaa wasaaradda warshadaha waxa ay vision bay leedahay visionkeedu waxa weeyaan inaynu helno qaran shacabkiisu ku raaxaysanayo dhaqaale koror socda oo waara iyo inaynu noqono hoggaanka adduunka dhinaca warshadaha ganacsiga marka waliba loo eego small and medium enterpriseska inaynu noqono innovationska ikhtiraca iyo magarasa entrepreneurshipka aynu hogaamino iyo waliba dalxiiska oo ah portfolio ay ka mid ah portfolioda ay wasaaraddu hogaamiso oo maadaama wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska tahay aragtida fog ee ay wasaaraddu leedahay waxay ay u leedahay hiigsi ay doonayso inay ku gaadho oo missionka wasaaradda oo ah in ay la helo jawi ganacsi oo habboon enabling environment business enabling environment in ay abuurto dawladdu ay markaa ay abuurto waa waxyaabaha ay doonayso inay ku gaadho hoggaanka ay doonayso inay ganacsiga hayso sidoo kale ganacsiga gudaha iyo dibadda in ay xoojiso kaan gobolka la leenahay iyo kaan international aan sameeyno export iyo importka in kor loo qaado inaan sameeyno istiraatiijiyad dhammaystiran oo dhinaca warshadaha ah si aynu uga hormarno dhinaca warshadaha oo hoosna ugu dhigno faqriga iyo saboolnimada sidoo kale inaynu kor u qaadno heerka tartanka ee Somaliland kor loogu qaadayo meeqaamka dalxiiskeeda in competitiveness-ka Somaliland ay ganacsiga ay ku leedahay adduunka kor loogu qaado sidoo kale in Somaliland noqoto tourism destination ay noqoto oo ay noqoto goob dalxiiska loo yimaado maadaama aynu leenahay aathar iyo goobo dalxiis oo ku habboon oo runtii ka qurux badan kana qadiimsan meelo badan oo adduunka hadda loo tago dalxiiska inaynu taana horumarino oo ay magaranaysa ay dawladdu ay u yahay missionkeeda iyo ay ku gaadhayso marka aragtida fog haddii aan u yimaado waxa ay wasaaraddani u taasan tahay iyo waxa ay tahay inay qaranka u qabato waxa weeyaan way fara badan tahay waxa ugu horeysa marka koowaad inay shuruucda iyo siyaasadaha dalka dhinaca ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska u yaala inay dejiso oo aynu xagga ka haqabbeelno oo waxaynu sharciyo yeeshaan oo ay kala dambeyn yeeshaan oo siyaasado cadcad oo ganacsiga dhiirigelinaya warshadaha dhiirigelinaya inaynu helno oo aynu samaysano taas waa mandatekeeda koowaad ee wasaaraddu u aasaasan tahay ta kale waxa weeyaan inay samayso system sahlaya alaabta dalka lagala soo degayo iyo tala dhoofinayo si aanay muxuu ahaa tayadeeda loo ilaaliyo oo loo dhowro in ay wasaaradduna waa qayb mas-uulbay ka tahay waxaanay xiriir leedahay oo xubin joogta ay ku leedahay inay hay-adda dhowrista tayada quality controlka inay samayso istiraatiijiyado kala duwan oo ay ugu muhiimsan tahay istiraatiijiyadda kala xadaynta ganacsiga oo aynu isagana sharcigeeda leenahay oo ay doonaa isagana ay samayso iskaashi dhaqaale oo mid gobolka iyo mid caalamka ahba inay dabagal ku samayso muxuu ahaa waxa la wax muxuu ahaa ganacsiga ah aan sharciga ku salaysleen iyo waxyaabaha muxuu ahaa discourage garanaya ama aan dhiirigelinayn sharciga sidoo kaleeto inay isku xidh ay u samayso dawladda iyo ganacsatada waxa weeyaan wasaaradda ganacsigu waxa weeyaan waa baabka dawladda Somaliland ay ganacsatadu u saamarto waxa aan wada shaqayn wanaagsan leenahay Chamber of Commerce oo ah rugta ay ganacsatadu ku midowday
taasaa ah markaa bridge ah noo dhexeeya annaga iyo ganacsatada oo waa qolooyinkaas aan ku wada xidhiidhno raaci taas waa mandatekeedii weeyaan haddii aan raacyo siyaasadaha aanu ilaa hadda hayno iyo shuruucda waayahay noqon doonaa intaas waxa weeyaan waa dowladdu wasaaradda ganacsigu waxa ay u taagan tahay iyo shaqadeeda mahadsantii aad baad u mahadsan tahay waxaan ku xigsoon doonaa cabdikariim oo isagu ah madaxa shuraako bal inaad macluumaad yaroo gaaban naga siiso si aan u fahanno shuraako iyo waxaad qabataan iyo saad u shaqaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waxaa dhahay cabdikariim jirta goole waxaan agaasime ku-xigeenka hay-adda shuraako shuraako waa program ka mida foundation la yidhaha One Earth Future Foundation oo basekiisu yahay waddanka Maraykanka gobolka Colorado xafiisna waxaan ku leenahay Hargeysa xafiis kale waxaan ku leenahay Garowe midna waxaan ku leenahay Muqdisho marka ujeedada ugu weyn ee shuraako loo asaasay waa connect invest jobs in lagu xidho ganacsatada maalgashi si markaa kacabsana u kobcaan oo ay u abuuraan shaqo abuur waa shaqo abuurku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhaqaaluhu ku kobco qof markuu shaqo helo ayuu noqonaya productive member of society qof cashuur bixinaya oo ma garanaysaa oo dee wax soo saar waddankii faa'iido u leh marka runtii intii waxaanu bilownay 2013kii baanu bilownay ilaa imika waxaanu ku xidhnay investment ama maalgashi gaadhaya ilaa 12 milyan iyo badh ilaa 10 sektor oo kala duwan ayaanu ku xidhnay investment uu ka mid yahay beeraha kalluunka warshadaha yaryar hospitalityga ama sida restauranada kale iyo hoteelada kalluumaysiga renewable energy-ga ama tamarta cusboonaata marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan inaan ku xidhno oo saad ogtihiin obstacle-ka ugu weyn amba carqaladaha ugu weyn haysta ganacsiga waa waxa ka mid access to finance ama inay helaan maalgashi marka muhiimadda ugu weyn ee shuraako waa inay ku xidho ganacsatadii maalgashi marka dhawaan waxaanu daha furnay fund cusub oo la yidhaha Nordic Horn of Africa Opportunity Fund kaasoo iska kaashadeen foundationkayga One Earth Future Foundation iyo Arsenal Family Foundation iyo Norfund oo matalaysa dowladda Norway iyo IFU oo ka socota Denmark marka waa first impact fund in the region oo lagu talagalay mainly waxaan sameynaa sharci compliance products waa muraabaxa finance waa debt waa deyn lagu bixinayo muddo business friendly oo businessku iska bixin karo si markaa lagu iibsado qalab shaqana u abuuro marka waa impact investing ujeedada ugu weyn waa inaan shaqo abuur inay businessyada abuuraan cashuurtiina ay bixiyaan markaasi markaa ay qayb uga qaataan magaranaysaa dhaqaalihii waddanka iyo wax soo saarkii waddanka because de markuu businesska kobco shaqo abuuro dowladdiina ay cashuurta ururiso booliiskii markaa uu bato xataa peacekii ay qayb ka qaadanaysa kaana waxaa dhahay peace foundation waa peace through governance slogankayga waa peace through governance marka haddii la helo dowlad wanaag in la helayo nabad marka nabadna ma kale ayaa developmentkii iyo horumarkiina imanaya magaranaysa marka through private sector ayaanu ka galnaa xaggii peaceka marka waxaan haddii businessyada kobcaan inay qayb ka noqonayaan sidaynu garanaba imika xaggan nabaddii iyo dhaqaalihii waddanka mahadsantahay cabdikariim introductionkaaga xaggan waxaan soo jeesan doonaa sucaad oo iyadu ahna madaxa ganacsatada dumarka ururkay ku bahoobeen bal adiguna introduction bismillahi raxmaan raxiim horta waa mahadsantiin inaa iga soo qayb geliseen kulankan waana muhiim in marmarka qaarkood kulamo noocan oo kalaa la qabto anigu waxaan ka tirsanahay urur association for women in business in Somaliland taa markaan ka reebo waxaan ahay ganacsato carqaladaha haddaan ka hadlo inta badan hor istaaga dadka businesska samaysta especially small businesseska maaha kuwa businessyada waaweyn ee baananka ee aan ahayn iyo dee oomaar ee raashinka soo roga businessyada inta waaweyn ma aha middle income businesseska carqaladaha inta badan hor istaaga waxaa ka mid ah access to finance even though ay jiraan baanan iyo dee hay-ado sida shuraako oo kale ah oo businessyada taa ka caawiya laakiin naguma filla dhibaatada ugu weyn ee businessyada imika haysata waxa weeyaan waddamadu marmarka qaarkood waxay galaan recession
yacni wax baayac mushtariga dhex socda ayaa yaraada markuu recession yimaado dowladdu hadii jiraale waxay ku dadaashaa businessyada ugu vulnerable-ka ah ama ay ugu badan inay suuqa ka baxaan marka recessionka noocaas oo kala yimaada inay u fidiso caawimo and unfortunately Somaliland caawimadaasi ma taalo oo waa qof walba iyo karaankiisa iyo siduu u heli karo access lacageed inta badan lacagyoga available-ka ah waa lacagyo ay tahay in wax lagu iibiyo wax lagu dhiso laakiin meelaha oo businessyadu ka dhintaan waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo running capital marmarka qaarkood alaabtaad haysay waxaad iibinaysay ayaa deyn lagaaga qaadanaya micnaheedu maaha lacag ma haysatid laakiin at that moment waxaa dhici karta inuu businesska xitaa mushaharadiisii iska bixin kari waayo adduunyada kale waxa available ah waxa la yiraahdo overdraft facility in loo ogolaado qofka businesska leh ilaa 5,000 oo dollar ama gini in uu casayn karo accountkiisa waxay ugu maqaalaa inay baananka qaar sameeyaan laakiin aanay ahayn wax ku dhisan loo siman yahay oo it's about who you know cidda taqaanid bay ku xidhan tahay saad u helisid serviceka noocaas oo kale ah iminka anigu businesskayga waxaan shaqaaleeyaa ilaa 26 qof haddii aan galo situation noocaas oo kale ah waxaa sodadii waxaa laga yaabaa waxa ugu horeeya uu businessku ka fikirayo inuu shaqaale dhimid sameeyo laga yaabaa inaan half aan ka takhaluso laakiin tise problemka meesha jira waxa weeyaan dawladdu ma oga dhibaatooyinkaas war uma hayso mechanism businessyada lagu caawiyaana ma yaalaan meeshan marka waxaad arkaysaa business bilaabma 2 sano jira 2daas sano oo loo yaqaano the dead zone oo businessyada intooda badan ay ku khasaaraan inuu jiro lacagta qofka la yimaada uu ama keensado uu ama save gareeyay uu businesska galiyo ka dhamaato businesskii kaco waxyaabaha ay tahay Soomaaliland inay ka dadaasho waxa weeyaan inaanay businessyadu kicin waxa muhiima maalin walba haddii shaqo abuur la sameeyo dadna dadkii la kala diro oo waxa xitaa dhacaysa inay niyad ku yimaado dadka suuqa soo geli lahaa ama investment sameyn lahaa inta badan middle income-ka ayaa very important ah waddankeena oo kale ah oo horumar doonaya in la caawiyo in la dhiso small and medium income businesses ayaa dhaqaalaha dalalkoo dhan ku xidhan yahay waxyaabaha kale dhaqaalaha dalka ku xidhan yahay waxa weeyaan spending haddii ay citizensku ama dadka muwaadiniintii ay waxba aana spend garayn dhaqaalahaas wuu xidhaya adduunyadoo dhan baa warwarta marka ay dhacdo heer ay dadku ay spending ka yareeyaan iminka situationka dalkeenu ku jiro waxaa ka mid ah warwar baa laga qabaa xagga dhaqaalaha saa awgeed dadku spending badan ma sameynayaan waxyaabaha kale ee Somaliland businessyadeeda dumiye waxaa ka mid ah aniga horta businesska noocaan ku jiro marka la eego 3 kooxood uunbaa wax naga iibsada waxa weeyaan normally dadka dowladda iyo dadka la shaqeeya hay'adaha dadka ka shaqeeya muxuu ahaayey iyo diaspora bisha 3 bilood ay yimaadaan we are all booming and this is wax ku unique ku ah Somaliland maaha waa wax ka wada dhaxayso wadamada oo dhan touristku xilligu yimaado dadku aad bay dhaqaaluhu kor buu u kacaa markay kuwaasi tagaan dhaqaalaha waxa sustain gareeya dad leh spending power ama dawlad ha u shaqeeyaan ama hay'ad u shaqeeyaan ama meel kale ha ka shaqeeyaan innaga waxaanu ognahay oo ogsoonahay dhaqaalaheenu inuu dadkeenu inta badan spending powerkooda uu yar yahay laakiin si waxa looga baahan yahay dawladda encouragement waxa looga baahan yahay inay hope samayso rajo inay dadku dareemin inay insecure ka yihiin xagga income-ka si wax u spend gareeyaan dhaqaaluhuna u socdo marka waxyaabahaas oo dhan la isku biiriyay ayaa carqalad ku noqon karta inuu businessku hore u maro marka waxaad helaysaa 20 business oo suuqa soo gala shaqaaleeya ka baxa qaar kale soo galaan ka baxaan and that's dhaqaalaha dalka uma fiicna waxa wanaagsan inay sustainable u jiro inuu businesskii la abuuray uu jiri karo muddo badan uu kobci karo ballaaran karo haddii aanay jirin dee wax kale lagu kaabaya xilliyada ay adag waxay noqonaysaa dib marka waxyaabahaas oo dhan baa dib u ahaa maxamed adigana bal
waan ku dheeraan doonaa horta oo topigaada very interesting ah oo xiise leh laakiin introduction about jaamacadda iyo kuliyadaha iyo shan u ogaana marka hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب كوباد jaamacadda Hargeysa waxay la tahay dad badan oo ay soo saartay ba howlkan ku jira ama imika dhigta hoggaanka dalka ku jira oo ugu horeeya dabcan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ka baxay barnaamijka Peace and Conflict post graduate ka qaatay jaamacadda Hargeysa waxay leedahay haddana yar description sameeyo ama profile-keeda sheego horta waa jaamacadda ugu weyn jaamacadaha qaranka ee public ah waa jaamacad ka kooban 13 kuliyadood ama college haddaan takhasusaadka ama barnaamijyada 13 kuliyadood lagu dhigto dhowr iyo 60 bay gaarayaan inta badanna waxay bixisaa takhasusaadka dalka anfacaya hadday noqoto undergraduate iyo hadday noqoto postgraduate ba jaamacadda Hargeysa sida jaamacadaheenu bada ahaayeen maadaama nahay dal yar markii hore waxay ka adkaydun teaching learning-ka in waxna la dhigto waxna la dhigo laakiin dhawaan waxa ku soo biiray in bilariskii jaamacadeed la yaqaanay teaching learning-ka iyo research-kina oo sameynay walibana iyadoo waxaanu sameynay aan dawladda miisaaniyad ku jirin research grant ah jaamacadda ayaa budgetkeeda qayb oo loo kordhisay in research lagu sameeyo waxaanu sidoo kale si fiican dhidbada ugu aasnay community service-kii oo service-sida sida tusaale ahaan legal clinic oo kale aanu sameynay ama human rights advocacy amba dhakhaatiirta kulliyadda dhigta tusaale ahaan caafimaadka oo kale inay campus sameeyaan jaamacadda waxaanu ku soo kordhinay in ardaydu sida waxa loogu dhigaya aanay noqon si ay shaqaalo u noqdaan laakiin ay u noqoto sidoo kale jaamacad entrepreneurial university ah xubnahan ku jiray oo jaamacadda maamulkeeda kamid ah baa tababaraan u tagnay Holland Maastricht marka waxaan soo dhiganay sida jaamacad looga dhigo jaamacad u diyaarisa ardaydeeda inay shaqo abuuri karaan amba ay ganacsi abuuri karaan intaa kadib curriculum-kii baan review garaynay waxaan ku darnay arday kasta ama takhasus kasta in ay dhigtaan course-kan ah entrepreneurship-ka ama sidii aad ganacsi u abuuri lahayd imika dhammaan ardayda oo dhan kulliyadaha dhowr iyo 60 ka barnaamijkan idin sheegay waxay dhigtaan entrepreneurship-kii marka ardayda waxaan ku tababarnaa sidii ay shaqo u abuuri lahaayeen iyagoo ay ganacsi u abuuri lahayn baan u jeedaa waxaan ku tababarnaa anagoo kala shaqeynayna walibana shaqadoon organization in aanu ardaydii sii siino mentor garayno CV-gii iyo sida interview-gii u geli lahaayeen aanu samayno in a nutshell waxaan oran karaa jaamacadda imika waxay noqotay jaamacadda ardaydii lagu diyaariyo inay hadhow shaqo abuuri karaan waxaanu samaynay oo qorshaha iyadana ku jirta jaamacadda lafteedu inay noqoto jaamacad iyadu ganacsiyo leh oo imika tusaale sanadka waxaa noo qorshaysan inaanu kaalin shida la samayno garoon baa noo qorshaysan lagu ciyaaro waxaan ugu talagalnay in hotel aanu samayno sidoo kale la seexdo oo ardayda management ama hospitality management oo kale ay ka shaqeeyaan internship inay qaataan ardayda intay imika ku jiraan jaamacaddan waxaan ku dadaalnaa sidii ay internship u heli lahaayeen annagoo shaqadoon wax badan kala shaqeyna marka in a nutshell jaamacaddii saddexdii bilarna waa u aasayin imika researchkii iyo community servicekii waxaanan ku dadaalaynaa sidii ay noqon lahayd entrepreneurial university u diyaarisa ardayda inay ganacsi abuuri karaan waa mahadsan tahay maxamed waxaan yar geli doonaa oon jeclaa waqtigana waa nagu yaryahay waxaan ka cudurdaaranaya inaan shaabtude aan ahaano barnaamijka ama qodobada si aan bal uga mari dhalno waxaan taaban doonaa ecosystemka entrepreneurshipku ku hareereysan xabad baan u mari doonaa waxaan isku dayi doonaa bal xabadaas iyo sidaan u qaabayn karno iyo siday influence ugu tahay iyo sida loo kordhin karo impactkeeda positively on the entrepreneurs marka waxaan ku horeysiin doonaa bal finance ku horeysan access to finance inay tahay one of the important things muhiim u ah in entrepreneurship kor loogu qaado oo uu growth gaadho cabdikariim bal adigoo ah ku turjumaya tiimkii shuraako bal sidaad access finance shuruudaha aad ku xidhaan oo kale ma yihiin kuwa caawinaya ama u khafiifsan in dadka u baahan in la caawiyo ay soo geli karaan kasan runtii access to finance-ku waa one of the amba caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan businessadu inay bilaabmaan ama ay kobcaan
marka runtii markii aanu bilownay shuraako waxaan runtii marketku dhimaanku uu badan yahay supply-ga iyo dhimaanka kala badan laakiin waxaanu ku dadaalnay inaanu design gareyno business friendly products oo runtii businesski uu ka faa'iidayo aan culays ku ahayn waxaanu ka dhigay horta muraabaxa finance product oo shariica compliance ah oo si dadkii ay u accept gareeyaan oo dadka ay u qaadan karaan waa shariica compliance waa muraabaxa oo waxay islamic finance-kii bay waafaqsantay number 1 number 2 waxaan u sameynay inay noqoto business friendly oo ay grace period oo kale in aan ugu darnay for example intuu muddada imanaysa alaabtu la install gareynayo laga shaqaysiinayo inaan qof wax bixinayo business ba nooc uu magaranaysaa uu baahan yahay muddo kala duwan from 3 bilood ilaa iyo mesela 9 bilood oo kale magaranaysaa muddada aanu qof wax bixin ilaa iyo inta business ka shaqaysiinayo waxa ka mid ah oo kale waxaan u sameynay longer term oo in qofku ku bixin karo from 2 sano ilaa 5 sano because markuu term ku dheeraado waxaan ogaanay in businesskii ay culays ka yaraanay magaranaysaa markuu slow noqdo kale waxa kaloo jira inaan u sameeyo seasonal payments oo lagu bixinayo xilli sida beeraha kale sanadkiina bixinayaan 3 ama 4 goor fishery-ga ama kalluumaysatadu waxaan ognahay waxa jira bad xiran oo 3 bilood ee xagaaga ma kalluumaystaan oo dabaylaha kaca bas 3 bilood waxma bixinayaan marka iyo bishu ku noqdo bas sanadkii waxay bixiyaan kalluumaysatada si nafta into 8 bilood 4 biloodna waxa la siinaya break marka waxaan u sameynay iyo longer term 2 sano ilaa 5 sano marka waxay siinaysaa businesskii affordability inuu kari karo markaa inuu deyntii bixiyo waxaan ogaanay markaa inay runtii dad badan ku bixiyeen marka client badan aan siinay oo different sectors ah deyntii way dhameeyay tii hore tii labaad baan siinay then waxa ku soo dhiiraday investors kale DFIs European DFIs oo runtii sii kordhiyay mashruuci marka runtii caqabadaha businessada haysta one of them waa business waa finance laakiin way badan yihiin laakiin dadka inuu ku fiican businesska entrepreneurship waxay leeyihiin skills oo runtii qurbaha iyo halkan ba businesska aad ugu fiican yihiin laakiin digital environment-kii ama ecosystem-kii businessku ma sahlana oo runtii xagga skill labor oo kale xitaa challenges baa ka jira laakiin finance waa runtaa still waxaan u baahanahay more financial institutions oo ma garanaysaa oo daboolad baahida laakiin waa baahi runtii jirta imka credit line oo kale business imka sheegay sucaad ama overdraft services amba ma garanaysaa amba credit line business helaan waqtiyada working capital bay u baahan yihiin waqtiga ay slow yihiin oo kale marka runtii challenge ku badan laakiin dadku way dadaalayaan runtii business badan oo caawin runtii way ka faa'iideysteen dan ka dhex galo waxaad sheegtay inaad 2013 ilaa imika bilowdeen waa 5 years haddaan khaldanayn 12 million iyo in ka badan inaad invest garayseen maxaad qiyaasi kartaa in how many businesses ayaas odhan kartaa in percent ayaa ka faa'iidaystay oo hadda ilaa imika socda maxaas odhan kartaa kuwa aan ka faa'iidaysan ama kuwa laftigood challenge-ka commonkee haysta odhan karno in la xaliyo u baahan tahay maxaas odhan kartaa horta business way ka wada faa'iidaysteen ha sii kala fiicnaadaan challengeska business qaar ku dhacay waxa kamid ah environment oo kale waqtigan roob imka beeraha oo kale waqtiyadii ari imka sanad laakiin ka hor runtii aad buu effect garay productivity-gooda sida beekeeping oo kale mashiinada iyo beerihiiba runtii aad buu hoos ugu dhacay production-kooda laakiin way ka soo kabteen imka sanadkan oo kale uu fiican yahay roobkii daay marka runtii ha kala business kala faa'iido badan of course laakiin way ka wada faa'iidaysteen different levels waxa kamid ah imka poultry farms way ka faa'iidaysteen si fiican uga faa'iidaystay oo magaalada supply gareeya beedka waxa kamid ah fishery kalluumaysato berbera oo kala ah supply gareeya Somaliland siya kalluunka ka iibiya marka waxa ka jira renewable energy companies install gareeya products kan solar oo kale runtii aad uga faa'iiday oo all over the country marka businessu way kala faa'iido bateen laakiin qaar waxa ugu dhibaato badan qolinkii runtii uu effect ku yeeshay environment-ku amba roob la'aantii sida beeraha oo kale iyo xoolihii laakiin sanadkan ka soo kabteen okay maartay waxaan ku wareegi sucaad oo iyadu presidentka women entrepreneur women in business sucaad challenge badan baa dumarka haysan kara maxaa is odhan kartaa adigoon dhex raacayno access to finance sideed ugu heshaan finance yaa idinka caawiya badanaa
maxay yihiin businesseska aad ay women association ururkiinu أو u badan finance u baahan in need horta iyadoo caqabadahaasoo dhan jiraan ayaa caqabadaha dumarka haystaana laba jibaaran yihiin horta saad og tahay informal sectorka oo dhan dadka ku jira ka shaqeeya majoritygu waa dumar oftanna hay-adaha lacagta provide gareeya ma gaari karaan waayo waxyaabahay u baahan yihiin waxa laga yaaba inay $500 u baahan tahay xagga ay maybe shuraako provide garanayso 5,000 marka horta caqabado aad u fara badan baa haystaa qolooyinkaas informal sectorka ku jira oo majority of the women who are in business ah marka taa la dhaafo in general ba yes qof walba waa inuu maraa the application form buuxiyaa processkii uu lacagta ku dalbanayay buuxiyaa marka dumarka marka waxa hor imanaya muxuu ahaa gidaarkii ugu weynaa waayo siyaabaha ay foomamkan iyo waxaan uu processkan uu jiro waxa loogu talagalay qof dee wax akhriya ama khabiir u ah waxyaabaha caynkaasoo kale ah marka way ku adag tahay waxaa laga yaabaa businesska dumarku inaanu dhaafinba dukaan inkastoo skillkii iyo talentkii iyo waxaasoo dhan ay leedahay dumarkuna waa aad bay uga baqaan horta daynta aad bay uga baqaan marka attitudekii iyadoo la eegayo iyo fikirkii sidii loo fikiray la eegayo haddana waxyaabo la fududayn ah imika cabdikarim hadduu kuu sheego inta badan businessyada apply gareey rag bay u badan yihiin baan filayaa oo waa loo baahay inay dumar badan apply gareeyaan laakiin howlo badan baa ku furan gabadha maaragtay business womankii waxay gashaa 110 title bay sidataa ninku focus keliyuu hayaa that's the business but gabadhii waxay haysaa waa social worker dhinac oo wixii baahiya dalka taale ama gurmad ah ama meel lacag loo guraya ah bay ka mid tahay muxuu ahaay qayladhaan oo dhan iyaday u timaadaa aqalkii hawshii kale dhinac ka wadaa marka runtii focuskeedu aad buu u ballaaran yahay marka taasina waa another problem haddii la fududeeyo siyaabaha ay dumarku access ugu heli lahaayeen funding waxaan filayaa inay ka qayb geli lahayn laakiin waxa imika loo arkaa inay tahay wax aad iyo aad u adag waxay noqotay baananka jira are not female friendly maaha muxuu ahaayey inta badan dealskooda iyo waxooda iyo processkooda waxay ku dhamaystaan outside the bank muxuu ahaa dumar badan ma soo apply gareeyaan ma soo apply gareynayaan waayo adiga markaad gabadh tahay waxaa lagu raacayaa ruleskii ay dhigteen oo ah wayna taa haysataa wayna certificate haysataa waynaad license haysataa waynaad ninkii baa imanaya hebel buu yaqaanaa wuu la qayilay ama shaah buu la soo cabay ama hebel kaloo yaqaanaa u kaxeeyey waxa laaliyo wixii prerequisitekii ama conditionskii aniga laygu xidhay daaqaday ka baxeen wanigan kule anigu I struggle with inaan helo overdraft waxa laga yaabaa inuu nin yaqaano nin kala yaqaano kan yaqaano deedna sheekadiiba ku dhammaato handshake marka horta situationka noocaas oo kalena dhib baa ka haysta dumarka businesska haddaad u fiirsato contractyo ma helaan big contracts from the government ma helaan waayo those are waxay dhex martaa rag bay dhex martaa anigu haddaan contract doonayo iyadoo wixiiba lagu kala tegey oo sheekaba dhammaatay oo qofka la siiyey ayaan ka weeraray contract baa jiray furniture oo la iibinayay miyaanad ogeyn oo waabay dhammaatay yani examples baan ku siinay marka dumarku inkastoo uu generally businesska Somaliland ka samaysan uu dhibaato badan la kulmo oo skill ka mid tahay imika shaqaalaha oo kale waa another major problem for businesses work ethic ma jiro shaqaala odhanaya waan shaqaysanayaa saacadii ma imanayo wixii loo diray maanta oo dhan imika anigu 3 years baan businesska aan leeyahay weli training baan ku jiraa kuwii 3 sanadoodii la joogay I'm still training them every single morning wixii aan shalay u sheegay maantaan u sheegaya berri baan ku celinaya saadan baan ku celinaya which is another problem laakiin dumar ahaan uu 3 jibaaran yahay problemka ay la kulmaan in business
okay qodobkaagaan oo tix raacaya weli waxaan ka dhigi doonaa maadaamaad adigu naga matalayso dhinacii qolada fanka bixinaysa waa lagu soo janjeersan karaa marka xagga dowladdan yara eego waan u soo socdaa laakiin qodobkaan rabaa inaan dhammeeyo finance waxay ka dhawaajisay inay business support ay womankoo kale khaasatan u baahan yihiin any other businesska kale macarag hadday noqoteen waa u baahan yihiin idinku marka laga yimaado inaad siisaan funds mooyaane ama aad process ka khafifisaan ma ugu dartaan support kale oo for example business planko kale si usoo qoriyaan inaad ka caawisaan inaad consultant u qabataan inaad areada ay weak ku yihiin kor usoo dhistaan xagga processkiinana maadaama nala joogto siduu yahay marka qolana ma laga khafiifin karaa qolana runtii requirementku waa same for everybody waxaan leenahay checklist soo buuxiyo laakiin waxaanu leenahay mashaariic imika aanu kala shaqaynay Oxfam oo la yidhaahdo work in progress oo 3 sano wadnay isagana imika sanadkan dhamaaday sanadkan lagu daray waa BDA services waxaa loo diyaarinayaa businessyadii weliba women owned businesska iyo youthka ayaa la train garanaya for 1 year waxaa laga train how to write business plankii si loo qoriyay financialkii technical assistant component buu leeyahay then markay dhammaystaan training waxaa lagu xidhay access to finance imika 30 business baan train garanay oo u badan dumar iyo dhalinyaro awna ay leeyihiin business ay leeyihiin 12 ka mid ah waxaan ku xidhnay finance deyn baan siin kuwii kalena waxay ku jiraan pipeline actually mashruuc successful noqday imika 1 year baa lagu daray next year waan sii kordhinaya hadii la hayra marka technical assistant component ba ayaanu leeyahay because waxaan ogaanay businessin waxa u big one of the challenges ka business haysta waxa kamid ah waa informal marka the investor kiina hadana paperwork jirin ma invest garanay especially markuu yahay foreign investor marka waxaan in la formalize in business laga dhigo waa very important oo documentation ki license ki wasaaradda ganacsiga cashuurtiina bixiyeen waddankana way fiican tahay qofkina way fiican tahay marka waxaan ku darnay training ka component kaasaan ugu sameynay BDS training ka aan kala shaqeynay Oxfam waxa kaloo imka fund kan cusub imka aanu launch gareynay sida wuxuu leeyahay technical assistant component oo qofka xitaa after markuu helo funding ka waxa loo train waxa loo hire gareynayaa experts for example imka hospitality oo kale waa imka su'aasha training buu baahan shaqaalihi continuous marka waxa loo hadii ku baxayo training kaas oo kale for example like 80% of that or 90% waxa ka kafar gareynaya as a grant ayaa laga kafar gareynaya because we want to make sure business ki inuu success noqdo oo guuleysto oo qofkii deelahaana ka faa'iido shaqana abuuro ka in si loo gaaro technical assistant component kaas inuu ku jira laakiin still desaad ogtahay baahida ba ka badan maganaysa demand-ki imika furtaan portfolio-yada in ku dhow 30% waa dumar waa women owned business ayaanu fan garaynay pipeline-kana waxa ku jira imika business badan oo kale oo dumarku leeyihiin marka runtii focuskaygu waa inaanu gaadhno more women in business recently actually hotel ku yaala Hargeysa waxaan u approve gareynay dumar leeyihiin loan fiican marka inaanu gaadhno dhalinyarada iyo dumarka waa one of our target ku jirta si access finance oo helaan waa obstacle badan ba haysta iyaga special waa mahadsan tahay waxaan filayaa qodobka uu ka dhawaajiyay ah in ganacsatadu waxay marayaan processka waxaa ka mid ah in la eego license-koogii inay valid yahay inuu dhacay anoo ku weydiinaya sidee baad markaa war uga haysaan fundiska badan ee la siinayo dadkaas sidee baad uga caawin kartaan in license bixintii ay qofkii u fududaato idinkoo u dhib yareynaya waxaan maqlaynay inaad la sameeyo one stop shop oo laisku soo ururiyo bal aad baad mahadsantahay cabdishakuur shuraakana dee horta aad baan u wada shaqeynaya u ogtahay iyadu laftirkeedu carqaladaha ganacsiga kamid ay haysta ayaabay ka mid tahay access to finance daraasadii lagu ogaadayna haddaan khaldanen tii ugu weyneed waxay ahayd tii ay World Bank ku sameeyeen 2012 ay ahayd access to finance iyo waxa uu getting start inay businessku markay ay bilaabay qofku doonay inuu ganacsi bilaabo carqaladaha faraha badan uu maro oo tusaalahan markuu 2012 wax laga qaaday dalal gaadhay 170 dal baa laga qaaday waxay naga hooseeyay 2 dal oo kaliya ama 3 dal ayay hayeen oo adeega macnaheedu marka business la bilaabay adeega heerku maro marka wax loo kala qaaday qofkan intuu process-ka marayo iyo time-ki ku qaadato iyo koska kaga baxa tusaalahan 12 process ayuu marayay qofku inuu maanta qofku muwaadinkii
uu ganacsi abuuro waxay ku qaadanaysaa 11 aanay silsilad uu maro oo institution inuu isku tallaabo waxay kaloo ku qaadanaysay 27 maalmood baa la yidhi in ayaaba in aad laysan ganacsi qaadatid ay qaadanaysa berigaas iyadoo taa markaa wasaaraddu ka duulaysa horta wasaaraddu waa og tahay muxuu ahaa sucaadna in badan shirar badanna waa ka wada qayb galnay meel kastana waa ugu yeedhnaa way og tahay dowladdu way og tahay carqaladaha haysta muxuu ahaa businesska waanay muxuu ahaa ka hawl gashaa inta karaankeeda ah oo shuraaka waa la shaqaysaa world banka iminka mashruuca iminka cabdishuur sheegay ee one stop shopka inuu qofku xaggaa ka soo galo albaabka institutionadii u baahnaayo dhan hal xafiis ka helo uu xaggaa ka baxo isagoo laysankii haysta waa programka marka world banku naga caawinayay oon doonay in ganacsado u samayno programkaas uu soo jiitamay muxuu systemkiisi waa la dejiyey waa la dhameeyey ganacsaduhu xaggii uu ka tegey intaas 11 jaranjaro uu soo marayay albaabkaasuu ka soo gelayaa albaabka wuxuu ka baxayaa inuu muxuu ahaa isagoo laysankii haysta inuu ka baxo oo qaato markaa wax lasoo waqtiga ayaabaa la yareeyey waxa la yareeyey koskaa la yareeyey waxa la yareeyo kale muxuu ahaa processki weli muu hirgelin laakiinse waxa uu stagekii ugu dambeeyey buu joogaa markii hore waxaan ugu talagalnay in online aanu ka dhigno oo online buu hayo waxaan pilot testing waxaa 3 gobol saaxil muxuu togdheer iyo hargeysa ayaabuu ahaa onlinekii markaa systemkii waqti bay qaadatay markaa imika waxaanu aad ugu dadaalanaa inaynu mid maalin wala horta ku tijaabino marka hore oo maalin walka aan ku shaqeyno si markaa aan waqti dambe inooga sii dhicino inay u qaadan muxuu ahaa waa markaa one stop shopka sidoo kale waxay xusteen sucaad oo runteed informal economiga ama muxuu ahaa dhaqaalaha aan tooska ahayn dhaqaalaha dadbani dalkeena waxa uu kaga jiraa meel weyn buu kaga jiraa daraasadii ay sameeyeen Cardiff University iyo Golis University waxa soo baxday 77% inuu dhaqaalaheenu ku tiirsan yahay informal economiga waana tashaca sheegtay oo qolooyinkan shuraakiyo ma gaari karaan informalka oo waxa lagu xirayaa laysankii baa lagu xirayaa anagoo taa ka duulayna sucaad waa ka soo maalinta dowladda ka soo qayb gashay iyadoo ay tahay muxuu dowladda hoose inay la dhiil garayso tafaariiqleyda iyo muxuu wadatada iyo hawlahaas oo dhan ayaan si aan haddana u bushkarayno oo aan dadaalkaas u laabno wasaaradda ganacsigu waxay qaadatay leadka ah in la formalize gareeyo ama muxuu ganacsatada dadban ee aan haysan muxuu shuruucda in shuruucda magarasa la soo gaarsiiyo waxay u baahan yihiin carqaladaha haysta laga qaado marka in dowladdu maxaa farageliso dowladda dhexe ay farageliso marka in la formalize gareeyo marka sidoo kale national development plan waxa ku jirta in 10% la formalize gareeyo muxuu sanadka koowaad taasna dadaalkeedu waa la wadaa ayadna muxuu xafiiskaasna waa ka mid sidoo kaleeto waxaanu sameynaa si access to finance iyo challenge-ka dhibaatooyinka haysta ay ganacsatada iyo ay dowladdu isku soo gaadhaan waxaanu sameynaa wada hadallo aanu u qabano public private dialogue oo ogtay sucaad oo ogtahay mid sanadla ah iyo mid sanadkiiba 3 jeer dhaca oo la yiraahdo economic coordination meeting oo ESCOM loo soo gaabiyo taas waxay markaas heshaa in ay ganacsatada yimaadaan la isku wareysto carqaladahooga sheegaan markaa dowladdu waxa ka dhalatay taas aan sii raaciyo muxuu ahaa wada hadalladaas waxa ka dhashay in la sameeyo siyaasadii muxuu ahaa ganacsatada wadatada iyo ganacsatada dhexe iyo kuwa waaweyn oo la yiraahdo micro small and medium enterprise policy oo yadna imka final ah oo cabinetka loo gudbinayo taasna way ka dhalatay shuruuc fara badan baa ka dhashay muxuu ahaa wada hadallada dowladda iyo ganacsatada ka dhaxaysa markaa kulli dowladdu inta taagteeda waana ka war haysaa platformkana iyo shuruucdiina waa u diyaarisay systemkaasina waa mid runtii caawin doona hadduu ilahay yidhahdo ganacsatada inay qaataan muxuu laysanka si fududna u qaataan si jabanna u qaataan inahaas markaa aan soo fahmay maxamed sulba hadda uu imanayaa tiibka in badan baa laga dhawaajiyey in loo baahan yahay mar walba dad cilmi ula wixi ama rag ha haato ama dumar haato ganacsigu ama ha weynaado ama ha yaraado in mar kasta oo ama fan uu raadsanayo ama management ay noqoto in loo baahan yahay dad cilmigii leh ka jaamacad hargeysa ahaan sideed uga qayb qaadataan inaad soo saartaan dad xirfadda dadka suuqu u baahan yahay oo aad soo saartaan su-aasha labadan kuu daba dhiga waxa weeye sidee uga qayb qaadataan policieskani marka la samaynayo iyo waa ganacsato kuliyada ganacsaad leedihiin ma jirtaa qaabkeed uga qayb qaadataan marka demand
way waad mahadsan tahay haddaan su-aasha koobaad ku bilaabo horta jaamacadda hargeysa waa xarun aqooneed oo knowledge baa yaalla siyaasaddeena waa policy-gii marka horta waxaan uga qayb qaadanaa in aanu ardayda sii barno skillska ay u baahan yihiin markay goobta shaqada tagaan sidaan sheegay ganacsi abuurkii baa ku jira waxaa ku jira managementkii baa ku jira ilaa iyo iminka 6 bilood ka hor waxaanu sameynay cilmi baadhis employability of University of Hargeysa graduates oo ah inaanu ka daba tagno ardaydii ka baxday jaamacadda bal marka waxaan la xiriirnay shirkado badan ama employers badan ay u shaqaynayeen waxaan nidhi skillska ay u baahan yihiin waa maxay aydan ka helin graduateska marka waxaa ka mid ahaa iminka skillskii loo baahnaayo kale communication skillska amba life waxaan communication skillska report writingka waxaanu isagana sameynay courses waxaanu sameynay components cusub oo communication iyo report writing oo kale ah marka waxaan u dhisnaa ardayda si ay hadhow u shaqayn karaan skillskii baanu barnaa anoo soo qaadanaya sucaad kiiskeeda oo hospitalityga waxay la tahay haddii maadaama jaamacaddu tahay xaruntii aqoonta waa in dadkii ganacsatadii iyo dowladdiiba ay lagu xidhaa dadkii shaqaynayay inay certified noqdaan tusaale ahaan wiig ka hor baan meel joogay makhaayada markaan inaan waitera ii yimid wuxuu intuu soo istaagay buu isagoo dacaraysan ayuu yiri maxaad doonaysaa it must be a wrong question soo dhowey ma odhan waxaan kuli qosol baan doonayaa horta inaad ii dhoolacdayso marka waxaan ahay macallin marketing ah marka waxaan u tegey mulkilihii meesha oo actually inan ahayd kadibna waxaan ku yidhi mee tababar siin shaqaalahan saasaa dhacday waxay tiri wallahi meemaan siin laakiin iminkaan siinaya marka haddii wasaaraddii ganacsiga oo kale iminka regulations samayso in qofkii waiter noqonaya 3 bilood course yar oo ah oo jaamacadda inuu certified laga soo dhigo kadibna markuu shahaadadii soo qaato uu shaqeeyo iyo dee sectorskii kala duwanay oo kale marka waxay la tahay dee haddii policygiina la saxo policy fiicanna la sameeyo in jaamacadda Hargeysa wax badan ay ku kordhin karto su-aasha labaad ee ah policyga waxaan uga qayb qaadanaa inta badan consultative way inta ugu badan dalkeenna markaan runta sheegno policieska waxay noo sameeyaa waa laynoo soo import gareeyaa inta badan aad baa laynoo soo import gareeyaa welibana waxaa ku jira shuruucaha badan oo aynan qaadi karayn contextkeenu qaadi karahayn ayaa ku jira marka inta badan consultation meeting baan lagu yeedhaa iyadoo la leeyahay policygu waa draft laakiin ay final tahay actually marka roolkaasna roolkii ahayd in knowledge policygeen iyo siyaasadaheen laga dhigo research based amba research evidence based laga dhigo oo jaamacadii lasoo involve gareeyo marka consultation waan ku helnaa laakiin aad sidee u ahayd laguma qayb geliyo waxaan soo noqonayaa agaasimaha policieski baan taaban marka policieska idinkun baa soo saaro sameeya yaad involve garaysaan from the angle of dadkii jaamacadihii dadkii ganacsatadii ayaan doonayaa sideed simply policy hadda waxaad samayseen policieski u dambeeyena kii corporateka SME policygii yaraa sidee marka policeskan laftigoodu u noqon karaan kuwo caawinaya ganacsatada yaryaraa iyo ganacsigii laftigiisa xaggii fudaydinta waad baadsantahay abshukur horta marka policy la sameynayo marka hore waa problem identification baa la sameeyo marka dhibaato horta waa in policygan ay dhibaato ka jawaabaysaa marka koobaad policy hortaasay ku timaadaa sida saxda ah uu sheegay professorkuna waa in dhibaato ku salaysnaataa laakiin si badanka iminka siyaasadeenu maadaama waxaan maxaa iminka difaac iyo weerar kuma jirno moogta marka institutionkeena jaamacaduhuna ma aha qaar muxuu ahaa u diyaarsan iminka in siyaasadihii bagarasaayo research sameeyaan wasaaraddu iyo dowladuhuna badanka way ku adag tahay iyagana laftiskooguna muxuu ahaa inay sameeyaan laakiin xagguu ka timaadaa siyaasaddu weeyaan marka koowaad annaga siyaasaddu waxay timaadaa iminka tusaale ahaan tan iminka ugu dambaysa hadda tusaale soo qaadano dialogue baan sameynay businesskii iyo dowladdii baa wada hadlay weliba economic sector coordination meetingkaas oo kale ayaa wax badan ay ka dhasheen marka la wada hadlo carqalad baa imanaysaa waxa weeyaan war businesskeenii waxa ugu badan iminka small and medium enterprise-ka ayaabaa dhaqaalaheeni ku xidhan yahay maxaynu ka yeelnaa waayahay aan siyaasad ka sameyno taasay ka dhalatay tusaalehaan iminka sidoo kale anagu dowlad ahaan studyga iyo
daraasadaha la sameeyo waa kuwa mar walba siyaasadaha ay tahayna ka dhashaan haddaan tusaale ku soo qaato tan iminka aan ku sheegayo ee one stop shopka tay ka dhalatay waxa ahayd taa aan ku sheegay World Bank sameeyay la yiraahdo doing business 2012 waxa ugu dambeysay tan iminka aan ku sheegay ay sameeyay Cardiff iyo Golis University ay sameeyeen waxa lagu ogaaday informal economigu heerku ka jiro markiiba maxaa ka dhashay waxaan doonay iminka waxa ka dhashay association policies ama corporation policy aad ma sheegaysay marka ma aragtaa waxa weeyaan dawladdu inay waa responsive marka waxay u baahan tahay un siyaasad aanay researcheski problemka marka dawladdu hesho marka bartaas marka siyaasadda ka dhalaysa marka mid ay anagu aan daraasad gaar ah u sameeyno ma aha laakiin daraasadaha la sameeyo iyo problemada marka la raise gareeyo ay sheegaan shacabku ayaa marka siyaasaddu ka dhalataa xagaas ka dhashaan waa runta in infrastructure-ku waa businesskii waa cost badan bay ku kacaysaa marka infrastructure one of the challenges-ka haysto kale waxaa ka mid ah imika electricity-ga waa meesha ugu qaalisan Somaliland imika cost of electricity-gu waa very expensive waa qaali marka runtii waxyaabahan marka qaybtan ka qayb qaadan karno anagu wadna waxa ka mid ah kale renewable energy-ga waxaan encourage karayna ama dhiirigelinaa maalgashiga tamarta cusboonaata solarka runtii waddankeenu waa cadceedu aad bay u fiican tahay marka business aanu finance garayno waxay amba beero kale ku iibsaday irrigation pumps amba business kale lighting u isticmaalay amba machinery marka waxay safe gareeyeen lacag badan oo kaga baxsay dieselkii maganaysa marka xagga electricity oo kale finance waa sector-adan ugu jecelahay more than ilaa 12% portfolio waa renewable energy runtii waanu sii kordhinayna marka xaggaas oo kale marka qayb xagga finance-ka renewable energy-ga laakiin runtii wadooyinka iyo maganaysa xaggii waxaan runtii imika nugu jira pipeline-ka aanu eegaynaa xagga biyaha runtii aanu qaarna waan invest garaynay warshadaha yaryar biyaha iyo runtii imika water utility company-ga Borom oo kale Shaba oo company weyna runtii waxaan imika eegaynaa bal inaanu saan la shaqayn lahayn oo si loo balaariyo sababtihiin imika waxay siiyaan in ka badan 15,000 oo household ACMBO laakiin waxay u baahan si balaariyaan si magaalada u gaadhaan xaggii finance-ka still waan ka soo geli karnaa infrastructure okay ka wasaarad ahaan oo kale kolay de horta wasaarad ahaan baan ka hadlayaa dawlad ahaan kama hadlayaanu marka dawladda de wixii infrastructure u qaabilsan yahay waa taas laakiin infrastructure-ku de laba u qaybsamayo soft infrastructure iyo hard infrastructure anagu marka qaybta inta ugu badan waxaan ka soo gelinaa marka qaybta soft infrastructure oo ah inaan rule regulation and policies ka dhisno ganacsatada oo aynu xagga ku dadaalno in infrastructure noocaas ah sidoo kale kan iminkaan idin sheegayay oo kale OSS-ku waxa weeyaan waa infrastructure business-ka diiwaangelinta business-ka oo kale in system loo sameeyo oo systemkaas soft infrastructure-ku raacayo oo sameynaa marka wixii sharci ku saabsan iyo wixii ku saabsan fudaydin ganacsi ee magaranaysa nagu soo wajahay infrastructure laakiin weli waxaa laga yaabaa in shuraaka invest garayso ganacsi ceerigaabo ku yaallo kale then influence-ka lobbying oo kale ma kala qayb qaadataan in wasaaradda wadooyinka iyo wasaaradaha ku shaqo leh hay'adda wadooyinka bal in la tixgeliyo ganacsatada 60% haddii halkaa beeraleyda ay ka timid oo kale 60% arabsiyo kale ay yihiin in wadada kale loo hagaajiyo oo lobbying caynkaas waan kala qayb qaadanayo waa tan iminka daraasadaan ku sheegaya 2012 soo baxday tan iminka uu sheegaya access to finance kow and getting electricity-ga in aanu shirkadaha la isku keeno oo kale oo inay helaan grant ay helaan shirkadaha leydhka oo kale aad baan uga qayb qaadanay wasaaradda ganacsigu aad baan uga qayb qaadatay inay hesho investment leydhka si loo dejiyo waayo wix kasta leydhkii hadday noqoto hadday finance noqoto waxay adkaynayaan ganacsigii waxay adkaynayaan marka okay and waqtigoon ugu yar waan soo gabagabeyn doonaa in 5 minutes laba su'aalood ka jaamacad ahaan oo kale lobbykaas ma ka qayb qaadataan in ganacsatada yaryar oo kale markaad shirarkan oo kale imanaysaan ka jaamacadahan oo kale in ama iskaa wax u qabso aad guwaabisaan ama dowladda oo kale lobbying caynkaas ma ka samaysaan maadaama aad soo saaraysaan dad ganacsata oo ganacsiga horumarinaya waan u samaynaa lobbyingka ganacsatadana waan u samaynaa oo ardaydeedii in ay sameeyaan tusaale fundiskii oo kale ay siiyaan door kasta marka hadii jeer la qalin jabinayo oo kale waxaan ardayda si loo dhiirigeliyo 3-4 qof meelaha ha tartamaan business ku tartamaan planis kadibna fanaha siiyaan marka anagoo isticmaalana xiriir kale oo leenahay ganacsatadii sida bankiyada oo kale
ayaan loo bigaraynaa in ardayda ay siiyaan fundis ay siiyaan waxaanu sidoo kale dowladda aanu samaynaa waxaanu kala shaqaynaa dabcan dee arrimaha dalka ku yimaado oo dhan waanu ka shaqaynaa doorashooyinka hadday noqoto wax kastaba jaamacadda qabata oo lagu qabtaa marka ganacsiga timaadana waanu loo bigaraynaa business public dowladda iyo ganacsatada okay waxaan quickly labadiina ugu wareegi doonaa xagga market suuq geynta oo kale ayaad odhan kartaa dumarkii waxa weeye waadigan yidhi wax badan bay u baahan yihiin fankii baa la siiyey then alaabtooda suuq geynta oo kale sideed as association ahaan oo kale uga caawisaan memberskiina idinka mid inay suuq helaan productkooga la iibsado loo xayeysiiyo caynkaas horta associationkani wuxuu taagan yahay very early stage marka marketingkaas weli waxaanu ku mashquulsannahay maaragtay survivalkii businesska laakiin waxaan doonaya inaan idhaahdo dowladdu waxay u baahan tahay economic development council bay u baahan tahay waayo wasaaradda ganacsigu waxay noo sheegtay taageero badan inay samayso policies ka shaqayso laakiin waxaa jira tallaabooyin ay dowladdu ku kacdo oo carqalad ku noqon kara businessyada sidii businessyada yaryar oo kale waxaa ka mid a zaadka dowladdu waxay tiri zaadka ayaan ku dhimayaa inflationka laakiin dise wax study oo laga sameeyey effectkii ku yeeshay businesseska iyo dadka wax iibsanaya iyo dadka wax maaragtay danyarta wax iibsanaya sabab waxyaabuhu dhibaatadu u geystay tallaabadaas u geysatay ilaa hadda study lagama sameyn waxyaabaha aan doonayna waxay ahayd in inflation ku dhaco laakiin unfortunately imika qofka muxuu ahaa danyarka ah ee iibsanaya diraca shiidka ah ee hargeysa dhex jooga shilin markuu ku iibsanayo waxa weeyaan 12,000 ayuu ku taagan yahay giniga hadduu dollar bixinayana 10,000 buu ku taagan yahay marka ma waxbaynu kordhinay mise waxbaynu dhinnay marka waxaa loo baahan yahay economic council ka fekera waxyaabaha caynkaasoo kale inoo iman kara ee ama tahay inflation oo ka hor dhaca oo study ka sameeya oo baara taas waxaa kaloo aniga imika effect igu leh waa gaasta imika waxaanu doonaynaa deegaankeena inaynu safegarayno waxaan ka hadlaynaa environmentka in la safegareeyo dhuxusha la yareeyo laakiin tise dowladdii waxay la timid inay cashuur kale ka qaado gaastii ahayd $13 imika waxay maraysaa $16 haantii marka taasi ma waxbay u kordhisay dadka ma waxbay ka dhintay marka waxaa loo baahan yahay economic development council effectka ay leedahay tallaabooyinka aanay noqon wax iska arbitrary oo qof intuu uu talo ka bixiyey dadna taladii la iska qaatay aanay noqon laakiin wax study laga sameeyey la eegay tahay muxuu ku yimid inflationku waynu wada ogna wuxuu ku yimid oo laguna any Tom and Dick and Harry baa og how to solve the inflation haddii lacagtaadu ka badato lacagta foranka lacagtaada banka lagu soo celiyaa maaha in saadkii iyo waxyaabo kale la eego marka waxay tahay in discussion laga sameeyo annagana looma yeedhin ganacsatay ahaan lama odhanin inflationka seen u dhimi karnaa lama odhan dowladdu go'aan ba iska gaadhay ay taa marka waxaa loo baahan yahay independent council dhaqaalaha dalka eega xaggu u socdo meesha tahay in laga improve gareeyo halka loo socdona yacni yoolka ama maaragtay visionkana dejiya waayo haddii kale waxay noqonaa abhoc iminka one stop shop yacni waxaan sugaynaa 7 sannadood with all due respect yeah waxa vividly u xasuusanahay si cad u xasuusanahay wasiirkii ganacsiga ee beri hore oo TV-ga kale يعني one of the amazing things that Somaliland develop in a one stop shop but maba furna illa hadda marka xawayaan policies way jiraan anu wax I'm not attacking the government لكن to say we are talking about مجتمع 75% young people yahay you cannot have policies that are lethargic oo u baahan in la inject gareeyo for energy so that it can be implemented marka waxaan u baahanahay dawladdu inay horumarka ay doonayso inay sameeyso ay fadhiga ka kacdo energy geliso waxay leedahay waan sameynayna ku dhawaaqdo shuruucaha ay ka mid yihiin in conventional banking wadanka yimaado haddii aan la ogolaanin waxa noqonaysaa weligeed inay alihin basadan ku jirayna waxa loo baahan yahay policies-ka baananka ee baarlamaanka yaala in wax laga qabto baa loo baahan yahay waxyaabo badan baynu u baahanahay imika one of the things attraction u ahaan lahaa Somaliland waxa weeyaan if we had a
liberal financial system, everybody would have come. اعترافك حتى إنه إيمان لها. But unfortunately, we need to think ahead and have a vision to move the country to a better place. Okay, thank you very much. xagga waxaan keegina session ku inuu uga baahan yahay session aad u sii weyn. Su'aalahayga waan soo gaabayaa, waa la isugayaa, waan malaynayaa. Ku labaad baan samayn doonaa oo waxaan ka rabnaa hadda in bal la isku yimaado oo wax badan oo common ah la wada share garayn karo in future xataa wax qabsoomi kara haddii tahay dawlad, haddii tahay shicib, labadaba looga baahan yahay active. Hadda waxaan ku wareejin doonaa okay, Ian. 1 minute ha. Muxuu marka hore sheego difaaci weerar ma aha moogta. Saadarteed difaac gali maayo. Difaac gali maayo. Markaas su'aal waa runteed in kastoo 8 sano ay 4 sano ahayd intii one stop shop uu ahaa, laakiin waa waqti fog hadana 4 sano in magarasa shacabka mar walba lagu dhaado waa la sameeynaa, waa waqti fog runtii. That's why aanu lahaa markii hore waxaan ka guurinaa kan online ka naystay problem ku ah mani walban doonayna ku tijaabino. Su'aal waa runteed laakiin mani walban doonayna in ku tijaabino oo marka online-kii ayaa problem noqday oo hore loo furi waayay. Sababta hore loo furi waayay waxa saddexda magaalo in qofku aanu dhibaato ka mudan qofka sanaag jooga inaanu Hargeysa iman oo intuu Burco iska diiwaan geliyo name reservation sameeyo, Burco iska diiwaan geliyo toos barta uga qaato muxuu ahaa license-kiisa ayuu muxuu ahaa vision ku ahaa. Laakiin maadaama online-kii uu soo gali waayay carqalad fara badan oo jira darteed waxaan diidnay inay fashil noqoto. Muxuu ahaa saa darteed baan u go'aansanay inaan mid mani wala sameeyno oo aan institution-kii halkii xafiis ku keeno, laakiin waqti saas marka ayaan sameynay. taa kale gaasta waa runteed gaasta ganacsatada noo saacabatay gaasta marka in looga sii daro ma hadda in looga soo magaranaysa weeyaan wasaaradda deegaanka ayaaba marka steady baan ka sameynayna waan igi lahayn haddii tallaabo la qaadayo dawladdu waa in la hayaa magaranaysa xog marka la helaa tala la helaa. Marka iminka wasaaradda ganacsigu waxay doonaysaa inay sameyso cilmi baadhis ku saabsan gaasta cuntada muxuu qaabka u soo degto qaabka qiimaheeda waxaasoo dhan kadibna marka ay ka soo saarto su'aasha hadaan raaciyo ma ku tala jirtaan iminka kale taxko kale waxa laga yaabaa in wasaaradda maaliyadda taxkii saarto wasaaradda deegaanka waxyaabo ganacsigii lana saarto sidee influencer ugu muhiimsan ee wasaaradda anagu horta ganacsatada u shaqeynaa wasaaradda ganacsigu ganacsatada u shaqeysaa horta in la ogaado weeyaan ganacsatada loo shaqeeyaa saa darteed waa sababta aan istedigan u sameynaa waxa weeyaan maadaama ganacsatadii ay ka cabanayso muxuu ahaa taxkaas in la ogaado si wax rasmi ah dawladda loola tago la yiraahdo ka daaya muxuu cashuurta noocana wogta sucaad double taxation baa jira problem ah oo dawladda hoose iyo dawladda dhexe iyo waxyaabahaas taalasirkeedana waanu wadnaa marka mar walba ganacsatada loo shaqeynaya inay gaabis tahay waa la arkaya laakiin mar walba waanu loo shaqeynaa. Okay, thank you very much panelka waan mahadnaqayaa waxaan hadda ku soo wareejin doonaa question answer kii session kii okay saddex su'aalood baan weydiin lahaa maalgeliyaasha iyo wasaaradda ganacsiga iyo jaamacadda Hargeysa. haddii aan ku soo horeysiiyo wiilkan jaamacadda maxay tolay wasaaradda ganacsiga waxaan oran lahaa dhalinyarada iyo dadka startup-ka ah ee iminka businessyada bilaabaya waxa ugu weyn ee dhibaatada ka haysata waxa weeye rentingka meelaha ay kiraysanayaan. marka ka dawlad ahaan iminka ma idii qorshaysan tahay in aad samaystaan meelo model ah oo dhalinyaradu ay ku samaystaan maxay tolay businesskooga oo qiimo jaban lagaga kireeyo kale. wasaaradda maalgeliyaasha waxaan jeclaan lahaa iyagana in hal su'aal weydiiyo waxaa jira dad dhalinyaro oo haysta maxay tolay adhooyin aad u fiican adhooyinkooga mar walba idinku waxaad ku xidhaan shuruudo inuu qofka haysto damiin maal oo kale inuu qofkii shuruudo aad u badan baad ku xidhaan marka qofka aan damiinkoo kale aan haysanin oo kale ganacsiga aad u wanaagsanna haysta kaasoo kale bal sidaabad wax ula dhiligaraysaan. jaamacadda Hargeysa hal su'aal baan weydiin lahaa waxaan jeclaan lahaa ardayda marka hore jaamacadda ayaa ka soo baxaan si fiican bay wax u soo dhigtaan marka dambena suuqa ay shaqo doontaan suuqa markay shaqo doontaan mararka qaar waxa dhacda inay skill u baahdaan marka iminka wasaaradda ganacsiga oo kale waxa isla garateen in dhalinyarada aad skillkoo kale aad bartaan oo dadna jaamacadda qofka hadduu baahdo kale wiiter oo kale in 3 bilood oo trainer la siiyo marka taasoo kale waxaad doonaysaan markuu qofku jaamacadda hore uga soo baxay uu lacag hore uga soo bixiyay in badan wax soo dhiganayay marka dambe trainingka la siinayo
min aad waxaad doonaysaan aad mar labaad haddana aad trainingka lacag kaga qaadaan mise in free lagu siiyo qofkii si uu ugu helo maxay tahay shaqo wanaagsan oo ku habboon marka intaasaan kaga bixi lahaa qofkaan su-aashiisa fahmin dib ugu weydiin karaa aniga haye muxuu ahaa taab moolalka iyo in ganacsatada muxuu ahaa kirada qaaliga ah horta waxyaabo fara badan baa ka horeeya oo ay tahay marka hore inaan saxno oo aanu sameyno sidaa shuruucda iyo muxuu ahaa brosesyadaas aan ganacsiga loo sameynayo marka hadda in aan moolal dhisno marka runta laga hadlo weli baanu gaarin laakiin ta ugu muhiimsan in doonayna imaka aanu dowladda hoose kala shaqeyna waxa weeyaan qolooyinkaa la yidhi ganacsadeena 77% dhaqaalaheena ku xidhan in loo helo waratada in ay dowladda hoose aanu kula hadalno in loo sameeyo markaa meelo ay ku ganacsadaan oo fiican oo loo sameeyo markaas riibadihii iyo howlashii loo sameeyo laakiin qolooyinka moolalka iyo waxaas taas maanu gaarin weli waa mahadsantahay su-aasha weydiisay horta access to finance guud ahaanba waa caqabad buu ku yahay ganacsatada gaar ahaan dhalinyarada iyo dumarkaba marka runtii waxaan anu bixinaa waa dayn amba waa debt marka dayntaana marka qofku waa inuu culays ku noqon oo hadhow dee ayna dhibaato ku noqon marka team waxa la evaluate garayna businesska ma ka bixi karaa dayntii ma soo celin karaa because business kasta dayn ma qaadi karo businesski marka financially waa inuu yahay sound businesski oo businesski yahay viable oo dee qaadi kara dayntii ka faa'iidaysan kara iskana soo celin kara marka runtii waanu encourage garaynaa dumarka iyo dhallinyaradaba laakiin waa merit based waa businesska la eega marka hore inuu ka bixi karo dayntii because qofka waxa laga yaabaa inuu culays ku tahayba dayntu marka business waa inuu ka bixi karaa dayntii uu iska soo celin karaa isna ka faa'iidaysan karaa shaqana ka abuuri karaa businesski markaa ku kobci karaa marka runtii waxaanu eegnaa financialka business inuu yahay business ka bixi kara daynta because markaa qof hadduu diyaar waxaan ku nahnaa nagu soo noqo steps ka mar then markaa diyaar u tahay ka lahayd qofkii diyaar waxaan waan siinaa runtii waan u encourage garaynaa amba aad u dhiirigelinaa dumarka iyo dhallinyaradaba bangiyadana waan runtii waan la shaqeynaa local Somaliland banks iyana xiriir fiican baa naga dhexeeya waan bashaaricna ka shaqeynaa jira damaanada hadduu qofku collateral fiican haysto waxay ku xidhnaanta collateral hadduu haysto collateral fiican damaanada waa la eegi karaya businesskuna fiican yahay waa business kasta wuxuu leeyahay strengths iyo weaknesses marka strength waa inuu ka bataa marba weaknesseska amba galdaloolooyinka marka hadduu business collateral fiican leeyahay track record dheer leeyahay waa la eegi karaa waxa la eegi karo waxa evaluation lagu samayn karo qiimeyn marka in laga maarmi karo damaanada ah tii jaamacadda haddaan ku daro su-aashii jaamacadda jawaabteeda waxaa kale jira kolley practice license baan sheegay anigu marka hore shahaade maan sheegayn kale marka normally markuu qofku profession ka shaqeynayo amba uu ka shaqeynayo sector sida tusaalahaan waiternimo amba dhakhtarnimo iminka dhakhtarnimo hadduu ka shaqeynayo liisanka wasaaradda waxbarashadu siin mayso ilaa lasoo certify gareeyo marka waxaan ka hadlayaa industrieska u baahan professionska in marka lagu xidho dowladda ku xidho liisankiina aan la siin ilaa uu jaamacaddii ka soo dhigto fiilka professionka uu ku shaqeynayo course u dhigma marka tusaale ahaan iminka jaamacaddu knowledge guud bay bartaa laakiin marka hadhow qofkii waiterka la certify garanayo waxaa la barayaa 3 months short course ah hospitality management la barayaa for sure lacag baa laga qaadayaa amaba waxa laga yaabaa de haddii ciddii uu ka socday ama ganacsigu ka socday ayaa sponsor garayn kara marka waxaan u jeeday license-ka weeye marka license-kaasi qofku u helo waa in jaamacaddii ay fiilkii short course yar ama certificate yar ku soo siisaa magacayga سعيد هذا عبي ولا مقعية حندوني لبا ويديو شراكو يو نعسيا سؤال شو جوه رسوا حندينا ويديو ما at the end of the day what impact assessment report مئات سمي سينو أدت كارلا شركة رئيسين سؤال شو بدنا ندينا ويديو الضمانة ذا وكله واحد شرطة أنا ما قاتي one of the banks كجواري كان كقاتي واحد ويديين إن الضمانة سوق قاتو تمين كي أن سوق حيستي oo ganacsada
ayaa ninkii markii operational managerka bangiga joogay loogu dambeysay la marinayay ayaa wuxuu horta ninkan horta miyaa la garanaya haddana accountka bangigiisa waxa ugu jirtay lacag $300,000 gaadhis marka sometimes damaanada waxa la yara eega dhinac kale oo qofkan ilaahay la yara garta mooyaane xitaa way ku yara adkaataa oo qofkii xitaa contractina way sometimes way ku adkaanaysaa qofka ay normal citizenka aan contract aysan wax ka istiraatiijiyada aad u yara fududayseen ama ganacsigu ku fududayn karo maxay noqon kartaa su'aasha labaad aan doonayo inaan weydiiyo wasaaradda ganacsiga waxaa jira laba mashruuc oo imika dowladda dhexe ay doonayso inay bilowdo mid wasaaradda sportska u qaabilsano dowladda Axmed Silaanya ayaa bilowday Somaliland Youth Fund baa la yiraahdaa Somaliland Youth Fund wali ilaa imika waxa loogu talagalay dhalinyarada in lagu horumariyo miyay jirtay wax istiraatiijiya oo microcredit dhalinyarada la siinayo oo lagu bixiyo su'aasha kale aan wasaaradda ganacsiga aan doonayna weydiiyo mashruucan labaad imika madaxweynuhu bilaabay shaqo qaran 1500 qof ayaa lagu target gareynaya 500 waa habla ayaa la yiri kuna waxa weeyaan waa inamo waxa lagu xareynaya akademiyadii militariga miyay jirtaa wax recommendation aad siiseen waxa la yiri dhalinyarada markay soo baxaan dawladda ay u shaqo tagayaan miyay jirtaa mashruucan recommendation aad madaxweynaha aad siiseen instead of kan qof shaqo qaran lagu tababarayo in ay dad private sector oo microcredit la siiyo iyagu iska private hadhowna ka qayb qaata entrepreneurs noqda instead of dadku ay u shaqo tagayaan xaggan kale because of waxa jira imika in wadamada for example Rwanda oo kale Minister of Local Government bay leeyihiin 5% of their national budget gooda in wasaaradooda waxa la tilmaamay 10% of the Rwandan population ka waxay ka bixin out of the buffer line because sometimes in dadka loo shaqo geliya civil service kama Turku was the only economic engine in economic growth. Assalamu alaikum. Way and waxa salaam soo sheemad bariga koris and Somaliland Youth Fund and kulli wasaaradda ayaa ka mas'uula and marka iyada muxuu ahaa wasaaradda ka mas'uulka warkeeda haynaysa oo haday noqoto marka ganacsi in marka loo soo gudbiyo dhalinyartii ay isku dayeen ganacsi marka la abuuraan oo business ku abuuraan markaas anaga noo soo wareegaysaa tan shaqo qaran muxuu ahaa horta wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiisku waxa weeyaan wuxuu ku jiraa waxa weeyaan wasaaradda ganacsiga waa wasaaradda hogaamisa dhaqaalaha dalka waana ku jira gudidii dhaqaalaha qaranka ayaa ku jiray waqtigii muxuu ahaa madaxweyne Muuse Biixi uu saaray marka kulay talo iyo tusaale markay dhaqaalaha noqoto muxuu ahaa sidoo dhaqaalaha uga saameynaysa arrinkani kulay waa laga weydiinayaa anagu laakiin si technical baan nahay anagu muxuu ahaa agaasimo waa technical mood marka wixii shaqadeeda daily ah technical ku saabsan laakiin wixii advising ah waa policy making weeyaan may wasiirku anagu wax naga dalbado waan u gudbinaynaa laakiin se wasiirkii madaxweynaha wixii muxuu ahaa tala ay noqoto madaxweynaha marka uu wasiirka marka aanu wax war kama hayo xagaas kama jawaabi karayo su'aasha haddaan ka jawaabo impactka uu sameeyeen so far investment kan sameynay horta waa impact investment fund ba profilada businessyada aanu la shaqeyno dhan waxa ku jira website-kayga haddaad gasho each business aanu invest garin waxa ku jira website-ka inta shaqo project garin oo abuuri doono so far waxay abuureen businessadaan invest gareynay ilaa 640 shaqo oo permanent iyo in kan badan oo ah indirect jobs ilaa 640 direct jobs oo permanent iyo more than that in ka badan oo ah informal and indirect jobs oo magaranaysa ay abuureen marka waxaan website-kayga dad tagto shuraaka.org waxaad ka helaysaa businessan la shaqeynay iyo shaqooyinka abuureen waxa kaloo leenahay M&E department oo runtii imika waxaan wadnaa assessment-kaygii internalka aan ku sameeyno laakiin each business aanu invest gareynay wuxuu ku jira website-kayga iyo shaqooyinka estimate gareeyeen inay abuuri doonaan marka waxaan ururinaa actual progress reports each business every 3 months waxaan la share gareeyaan project sameeyay businessku marka waanu ururinaa waanu that's why number of jobs xagga sano ka keen marka sanadka 4 goor ay noo soo gudbiyaan reporto marka halka sano ka ururinaa job numbers marka inta waxaan u sameynaa projection in the next 2 to 5 years inta shaqo abuuri karaan job creation runtii waa number 1 and impact-ka uu leeyahay investment-kan yahay damaanadaas way soo noqotay runtii waxay ku xidhan tahay business hadduu leeyahay collateral fiican imika waxaa jira mashaariic aanu dadka low collateralkaan kula shaqeyno
marka haddii uu business collateral fiican leeyahay oo business fiican leeyahay waa case by case waa case by case because business waa merit base runtii maaha wax dadkoo dhan de qof waxay ku xidhan tahay nooca business ay ku xidhan tahay collateralku waxa weeyaan qofku inuu leeyahay asset waxa weeye hanti ma guurtaa hanti ma guurtaa exactly waa hanti ma guurtaa laga yaabaa mararka qaar xataa inaa qofka accountkiisa xataa la eegi karo qofkani lacag deymaha ma bixiyaa mise ninkani ma bixiyo oo mararka qaar further baan isleeyahay okay fadlan su'aaladuna soo koobna I think I'll stay seated. waxaan doonayaa inaan weydiiyo laba su'aalood waxaan weydiinayay agaasimaha iyo problem maxamed waxaan fahmi waayey adduunyada wadannadoo dhan qaar Africa iyo qaar Western world ku jiraba waxaa jira vocational training iyo formal training so formalkii hadday jaamacadihii sameeyaan waxaynu leenahay at the moment maba garanayaba tirada inta jaamacadadaynu leenahay maxaa diiday inay dowladdu xadido in vocational training centers la furo qasaba so qofka raba inuu educational center furto in proportion lagu khasbo inay vocational training ka dhigaan because nonetheless lacagtu way sameynayaan waa courses ay bixinayaan waxani marka maxaynu as a country waxaan maanta gidi la leeyahay training baa loo baahan yahay skills baa loo baahan yahay inaan maanta gidi lagu celinayo koobka saa u dhig dadka welcome de maxaynu ugu furi weynay meel lagu train gareeyo as a government su'aashayda kale aan doonaya inaan weydiiyo aan adigu weydiiyo sorry waxa weeyaan one stop shopkani yes say suxad bisheegaysa cabaar baa laga hadlay I mean almost intan waddanka joogay baa laga hadlay waxaa tiri online baan ku bilownaa iminka waxaan rabnaa inaan ka dhigno more manual maxaa diiday inaan labadaba samayno maxaa diiday in Hargeysa oo ah the capital laga furo center caadiya oo qofku soo geli karo saad sheegaysay albaabka soo galo starts the process gets their license uu ka baxo meesha iyo inaan anigoo burco jooga ama ceerigaabo jooga online aan ku sameeyo as much as possibly can labadu inay isgarab socdaan maxaa inoo diiday because adduunyada dhan way isgarab socdaan wax qasab ay tahay in magaalo kale aan u travel gareeyo ama meel fog oo yartay badanaa especially in this digital era and midda kale jirta Djibouti oo inaga dambeysay oo in badan inaga dambeysay within 1 year one stop shop world class bay samaysteen for African standards almost Europe ad moodaa markaad gasho the one stop shop waad soo gelaysaa Djibouti oo French oo the most bureaucratic countries intan garanayo oo systemkooda dhan French based yahay ayaa haddana they made the system of licenses iyo small businesses inay license qaataan seamless waad soo gelaysaa waad registraynaysaa kii taxka fadhiya kii kusini license ka fadhiya you get your license waad baxday yeah so maxaa inoo diiday inagana saasay 4 sano in la rafanaynaa waad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay taa OSS kan ku horeysin doonaa ayo taasaa ma aragtay more related ah horta maanu joojin online-ka maan oran waanu joojinay online-ka laakiin waxaan ku bilaabaynaa iminka money walkii maxaa yeelay waqtigaas dheer ay qaadatay darteed sababta u qaadatayna waa technical iyo financial problem ka yimid muxuu ahaa xaggii anagii iyo World Bank-ii muxuu ahaa naga caawinisay iyo hay'addii markaa gacanta ku haysay maadaama inaan inagu dowlad ahaan aynaan intan bilaabanay inagu waan dhamaysan lahayn haddaan bilaabanay laakiin se waad imagine fan meel kale ka imanaya World Bank ayaa systemka naga caawinayay in la sameeyo markaa uu jiitanka markaa si aan ugu soo gaabino oo aan waqtigan dheer u gaabino ayaan money walka horta ku sii bilaabanaa money walkuna wax kale ma ahaanay wax weeyaan sidaad sheegaysid one stop shop inuu xiraaliyihii muxuu ahaa wasaaradii finance-ka oo maaliyaddii intii ayo dhan ay xafiiska soo wada fadhiistaan simple waa inta weeyaan qofkii uu soo galo uu soo maro uu qaato online ku laakiinse online-ka waxa weeyaan sidiisii buu soconayaa isaga amba sanadkan gudihiisa amba sanadka bil ha qaato laba ha qaato isaga mid aan joojinna maaha oo waayo waxa weeyaan muwaadiniintii kale ee gobolada ay iyaguna fudaydka si ay magaranaysaa ay u dareemaan loogu talagalay marka online ku soconaya laakiin kan si hore ay noogu soo dhaqsto oo sugidan faraha badan leh aynu magaranaysaa aynu maxaa u soo dhigno ayaabaan iminka doonaynaa inaan online ku bilowno money walkaas
waa saa weeyaan waa Djibouti oo hambalyeynaa hadday noogu horeysay inay way naga dambeysay berigii daraasadda la sameeyey iminka hadday naga horeysay kole dadaal bay geliyeen insha Allah dadaalka inaguna gelinaa ka vocational trainingka kole taas manifestadii xisbiga iyo tii madaxweynaha uu ku jirtay inay vocationalka xoog la saaro taana wasaaradda waxbarashada kole u qaabilsan muxuu ahaa oo iyaguna hawlahooga wata aad ilaahay raado laakiin taa ganacsigu waa saas insha Allah kole hawshaas streamka OSS-ka insha Allah waan rumayn doonaa haddii ilaahay raado waxaan ku darayaa su'aasha kale vocational training centerska inta badan waa wax ka timaada policy xagga sare ka timaado imika inagu laakiin demba even jaamacadaha laguma xidho iska daa vocational center inta graduate ay soo saarayaan filalka dalku u baahan yahay inta shaqada dawladdu ay hayso amba private sector ku hayo marka waxay la tahay in policy la sameeyo oo la yiraahdo cid kasta oo higher education ah amba even academic institution ah in vocational institute ay yeelato sida ay u leedahay formal training schoolska ay u leedahay jaamacadaha waxaan sameynay iminkaan furaynaa school vocational training ah oo commentary-gii iyo skillska asaasiga lagu baranayo waxa sidoo kale wada hadal noo socda iskuulkan farsamada gacanta Hargeysa oo laga yaabo inuu noqdo institute hoos yimaada jaamacadda Hargeysa oo farsamadii lagu barto waan soo gaabin doonaa su'aalo badan laba question baan qaadi doonaa hadduu eebeedmo lambar 1 بسم الله الرحمن الرحيم واي dhamaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan aad u iftiimiseen caqabadaha jira inkastoo caqabaduhu aad iyo aad u badan yihiin haysta dadka ganacsatada ah waxaan u mahadnaqayaa qabanqaabiyadii soo qabanqaabiyay shirkeenan maanta waxa ilaa bari hadaynu isniraahdo caqabadaha ka hadla waynu ka hadli karaynaa su'aalo badanna waan hayaa laakiin haddaan soo gaabiyo oon xagga dawladda yar weydiiyo waxaa jira sida aad sheegtay researchkii informal businesseska waxaanu ognahay inay 70 boqolkiiba inkamkeenu uu ka soo baxo xagga ay businessyada yihiin marka waxaan weydiin lahaa tallaabooyin wasaaraddu ma qaaday ay ka dhigayso formal businessyada oo tallaabadahaas waayo waxa weeyaan access to finance-ku كل ninka ganacsad ninka maal gelinaya wax wuxuu ku xirayaa inuu formal noqdo iyaga laftooda inaad initiate gareyseen hadal idin aad la hadasheen oo aad doonaysaan iyaga si wanaagsan inaad u formal gareyseen taasi waa su'aal ta kale waa comment waxa weeyaan xagga islaanta waratada ah ama tamaandhay binsa ama muus iibinaysa adduunka oo dhan waynu naqaanaa ceeb maaha in la tax la bixiyo waxa wadannada gaadhaan boqolkiiba 50 buu gaadhaa qaar marka laakiin waxa muhiima in return la arko oo islaanta ganacsatada muuska iibinaysa halka ama tamaandhada iibinaysa in ay aragto wixii ay bixisay in wax loogu qabtay laakiin haddii ay noqoto uun taasina waa ta keentay badanka businessyada ama gaasta ha noqota oo dawladdu ay iyana noqonin inaynu tax hunting ku jirno mission inaynu caawinno oo wixii businessyada laga qaado in la arko inay faa'iido keenayaan intaasaan soo su'aashu waa intaas aad bad mahadsan tahay waan soo koobaya kulli waqtiguna wayna arinayaa informal economiga progresskiisu wuu socdaa waa tan aan ku sheegay daraasaddu marka dawladdu maadaama ay markaba doonayso inay ka jawaabto carqaladaha markaa soo baxa daraasaddu markii ay saa u soo baxday muxuu ahaa tiimkii daraasadda sameeyey xataa waan casuunay Alison Cardiff University professor ka Professor Eid iyo Golis University sidoo kale waxaan casuunay Al-Ghazal oo ah urur ka mid ah dawladaha hoose ee Somaliland waxaanu casuunay waratadii daraasaddaasi taabatay Saacad maalinta way joogtay shir baan u qabanay waxaanu intaa shirka ka hor waxa ESCOM Economic Sector Coordination Meeting-kii shirkii dhaqaalaha wadaagta dhaqaalaha waxa laga dhigay subsector kamid ah ayaaba economic informal economic laga dhigay taad waxay ku muujinaysaa priority la siinay ay dawladdu siinayso sectorkaas subsector kamid ah ayaaba laga dhigay intersectoral meeting ministerial meeting baa dhacay oo wasaaraddii arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska shir baan ugu qabanay wasaaradda oo arrinkaas ahmiyadiisa la isla qaatay
shirka waxa ka dambeeyay shirkii muxuu ahaa maalinta aanu qabanay ganacsatadii oo qabanay marka isagu program imika u socdaa marka wuxuu ku jiraa priority-ga dowladda ahmiyaddu ku jiraa weliba qaybta dhaqaalaha wasaaradda ugu jiraa in muxuu ahaa ganacsatada la siiyo rajada iyo muxuu ahaa isdiilada ah in ay waxaan laga qaadaya ku soo noqonayaan waatii Soomaaliland mar walba dowladdeedu u taagan tahay inaan ganacsatada aanay dowladda u arag dhiig miirato iyagoo ku dul nool oo ay ka qaadanayso un waxay magaranaysaa laakiin in ay tahay waxaan laga qaadayo ay tahay mid iyaga wax loogu qabanayo hadday noqoto in shaqaalihii dowladda wax lagu siiyo hadday noqoto in ciidankii qaranka wax lagu siiyo hadday noqoto in shuruucdooda lagu sameeyo hadday noqoto in amnigooga lagu ilaaliyo hadday noqoto in loogu sameeyo meelahan muxuu ahaa dowladda hoose ay waratada in laga kiciyo dhulkii oo marka ma aha sidii loogu talagalay uma socoto laakiin se waa tahay mas-uuliyadda dowladdu inay tahay insha allah ka wasaarad ganacsi ahaanna annaguna waa isku dhiirigelin doonnaa waana ku dadaali doonnaa hadduu ilaha yidhahdo dowladda hoose oo ay khusayso waratadu waayo waxaa jira xeerkii kala xadaynta ganacsiga dowladda waad ogtiin ganacsiga muxuu ahaa kala xadaynta waxa limit buu siinaya dowladda dhexe limit ay tahay inay ganacsatada ku istaagto marka waratada waxaa le dowladda hoosaa leh laakiin waan ku bushkaraynaynaa inay muxuu ahaa ay roolkeeda qaadato hadduu ilaha yidhahdo bismillahi raxmaan raxiim su-aasheedi waxaan weydiinayaa nuur shuraako horta waan uga mahadnaqanaa doorka ay ka qayb qaadato maalgelinta ganacsada yaryar iyo habka ay ugu fududeeyaan iska soo bixinta deynta waxaan weydiinayaa un programka ahaa norfen gormo bilaamiya applicationku halkaas laga xareynayaa ta kale mashruucii aad la wadeen hay-adda ifad isaga ma laga yaabaa inaad sanadkan jidiisaan aad baa mahadsanti su-aashayda waxa weeyaan markan liisan ka hadlano ama qofku dhalinyartaa uu rabo inuu lacag ka qaato bangiga something waxaa la odhanayaa waa inuu hanti ma guurtaa haystaa waxaynu ku celcelinay maantan oo dhan hanti ma guurtaa hantidii ma guurtada ahaydna waxay maraysaa $50,000 ama $60,000 while ganacsatayaasha iminka sanadkan ay soo badanayso inay u raraan faamilkooda dalka Turkiga oo ay u arkaan inay nolol jaban tahay dhul jaban tahay guryo jaban ay ku yaalaan halka Turkiga guriga dhisan uu $35,000 ka marayo Hargeysa wuxuu ka marayaa dhulka bannaan waxba ka dhisneen $40,000 taas xaqiiqa si dhalinyartu ay yeelato hanti ma guurtaa dhalinyartuna ugu dhiirato inay dhul iyo guryo yeeshaan aanay ku noolaan kuwii abiyaashood ma ugu jirtaa wasaaradda ganacsiga iyo iyagoo kaashanayo dowladda hoose inay bal dhulka ay xadidaan lacagtiisa magacaygu waa Mustafa Sharmaarke anigu waxaan weydiin doonaa su'aal mudane Maxamed Sulub jaacada Hargeysa ka socda mudane Sulub waxaan ku weydiin lahaa waxa jirta problem fara badan oo haysta ardayda aan wadanka wax ku baran ee banaanka ku soo bartay wax wadanka dibadiisa ardaydaas markay soo noqdaan ma helaan xog fiican oo ka shidaal qaataan waxa jira wadamo fara badan adduunka ku yaala oo ardaydooda dibadda ku soo barata markay soo noqdaan waxa la siiyaa jaamacadaha waxay siiyaan koorsooyin su'aal ahaan kale ardayga dhaqaalaha soo bartay waxa la siinayaa dhaqaalaha dalku siduu u socdo bolisiga dhaqaalaha dalka ganacsiyadii ugu dambeeyay 2 sano ugu dambeeyay la abuuray kuwii kacay iyo sababaha ay u kaceen kuwa dhisan iyo sababaha ay ku sii dhisnaadeen ardayda caafimaadkana waxa la siiyaa xanadii ugu loo dhintay iyo waxyaalo noocaas ah iyaga si voluntary u shaqeeyo markaa kadibna waxay ka helaan khibrad fara badan ardayda engineerkana waxa la siiyaa dhismayaasha ugu badnaa ee burburay kuwii la dhisay waxyaalihii burburiyay wax way fahmaan markaa koor 3 bilood 4 bilood qaadanaya marka idinku taama leedihiin ama ma ku tala jirtaan inaad samaysaan way taas waxay caawin kartaa qofkan waxba wadanka ka ogay dadkeena caadiga ah markaad wareysataan xog fiican kama helaysid oo kugu filan maasantaa way aad buu mahadsan yahay ninka dhalinyarta weydiiyey waxaan ka eegayaa dhinaca ganacsiga oo anigu dhinaca dhulka marka muxuu ahaa laga hadlayo barigii ganacsatada haysta waxaa ka mid ahaa muxuu ahaa qaaliga kirada ku tahay kirada ganacsigu ay ku socon leedahay waxyaabahay ka mid tahay waxaan wasaaraddu waxay wadaa siyaasaddii warshadaynta dalka ayaaba la wadaa taas oo ay ku hoos jirto industrial zonekii in markaa la sameeyo aag warshadaha dalka muxuu ahaa u gaara ah oo si markaa ay u dhacdo qolooyinka dhaqaalaha aad ku yaqaanaa economic of scale oo kale uga dhacdo
lasugu keeno qiimo jaban iyo saar fara badan oo marka dhasha meeshii taas ay faa'iidadeedu tahay kiradii garaystaan warshadii way ka fikirtaa qaali ah kiradii dhulkii oo qaali ah maanta waad ogtiin qof kastaaba dhul buu iska sheeganaya intuu doonu siinaya marka dowladda hoose arrinkaas way ballan qaaday inay muxuu ay samayso dhulkii bixiso industrial zonekii bartaa markaa infrastructurekii oo dhan loo geliyo warshadleyda iyo wixii ganacsi saasa markaa ay muxuu ahaa saa ugu fududaato bolisigaas inay naga xidhanta insha allah bolisigan saa badan inay ku jirtaa hadduu ilaah idhaahdo runtii waa su-aal fiican haddaan Nordic Horn of Africa Opportunity Fund ama fundkan cusub waxaan launch garaynay dhowaan waxaan actually kala shaqeynaa wasaaradda maalgashiga iyo wasaaradda ganacsiga labada wasaaradood open application u furan maalintii aan ku dhawaaqnay wasaaradda investmentka ka dhawaaqnay laga bilaabo waa application u furan waxaan ka balaagan kartaa online shuraako.org haddaad gasho applicationka halkaas ku jira oo concept note-kii aad soo gudbinaysay iyo business plan-kii template aan u sameynaa ku jira marka iyo criteria-da looga baahan yahay businesskuna soo apply garay waxaad ka helaysaa website-kayga shuraako.org marka application uu furan yahay runtii application-ku deadline ma leh as long as uu fundki available yahay qofku waa apply garayn kara marka uu fundku dhamaadun baa la joojinaya processkuna waqti buu qaadanayaa inta qofku inuu soo checklist baa jira ku jira website marka looga baahan yahay qofku inuu soo gudbiyo mashruucaas wuu jira runtii agri food fund aanu kala shaqayn jirnay ifad mashruuc fiican buu ahaa matching grant buu ahaa with diasporada iyo qof local ah oo runtii oo invest garanaya agriculture-ka iyo food industry-ga marka mashruuc pilot uu ahaa runtii business ilaa 14 aan siinay laakiin second phase-kii weli maanu bilaabin runtii hadduu ladino haddii insha allah waanu bilaabin laakiin phase wuxuu ahaa pilot project si fiican uu runtii successful buu ahaa waxaa laisku xidhiyay qof diaspora iyo qof local ah si uu ka invest garaystaan food industry sidaanba fishery-ga agriculture-ka any food business related umaasanta sida uu gentlemanku inoo weydiiyey horta ma lihin in qofka aan orbit garayno laakiin waan nood garaysto insha allah waxaan u gudbin doonaa sanadka jaamacadan u gudbin in system noocaas aanu samayno aad buu fiican yahay mar kastana dee development baan ku jirnaa marka ma lihin laakiin insha allah waanu samayn doonaa hawshaana concernka waan qaari doonaa anuu ka faa'iidaysanaya markii ugu dambeysay ilateen microphone-ku u yimaadee waxaan leeyahay aan ku boorinayaa ganacsatada iyo dowladdaba in policy-geen iyo howlaheenu ay noqdaan research based ama evidence based noqdaan anigoona agaasimaha ka daba tegeen si fiican buu u faahfaahiyey ganacsigii laakiin haddana jaamacadu waxay u leeyihiin awood buuxda imika inay research kasta iyo policy kasta samayn karaan welibana local policy samayn karaan aanay soo import garayn oo local ah oo organic ah inay samayn karaan marka waxaan leeyahay inuu saamino dalkeena inuu aamino ganacsi ahaan iyo waxbarasho ahaan iyo siyaasad ahaanba insha allah waan soo xidhayaa way mahadsan yihiin intaasaan ku eegsiina doonaa sesha ku dheeraaday waxaan u mahad celinayaa panelka maxamed oo ka socda jaamacadda hargeysa sucaad oo iyaduna ah entrepreneur ahna presidentka ganacsatada dumarka cabdikariim oo shuraa ka socda iyo agaasimaha waaxda ganacsiga wasaaradda ganacsiga waxaan kaloo mahad celinayaa dadweynihiina sharaf kale ka soo qayb galay aad baa u mahadsantihiin iyo su'aalaha wax ku oolkeed weydiiseen waxaan halkan uga mahad celinayaa oo kale lead partnerkayga takaaful iyo location partnerkayga oo madashan aadka u quruxda badan leh nagu caawiye oo iyagana harhab oo halkan fadhina waxaan kaloo mahad celinayaa kabaleystayaasha iyagna xagga kamarada partnerka la ah True Cable TV dhammaantiin aad baan idinku mahad celinayaa topiga maanta aan ka hadlaynay oon dib idin xasuusi doono oo ah ecosystem connect waxyaabaha saameeya ganacsatada ku xeeran iyo sidii bal kor loogu qaadi lahaa positively inay saameyntoodu si wanaagsan ay u fusho waxaan idin xasuusinayaa barnaamijkeen oo bilo ah bisha dambe December waxaynu kulmi doonaa sabtida u dambeysa bil walba
marka bishan waxa la hore aan ugu soo dhignay waxaan ka qayb gaadanaynay entrepreneurship weeka oo maanta u dambeyso marka insha Allah ciddii aad u xiiseynaysa way noo socon doonaa barnaamijku waa bille bisha December waxay noo ahaan doontaa insha Allah sabtida u dambeysa waan soo inform garanaynaa inta hore waxaad nagala socon doonaa Facebook-kayga iyo Twitter-kayga iyo website-kayga. Thank you very much.